duqeymo dhanka cirka ayaa lagu bartilmaameedsaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada kuwaas oo ku sugnaa tuulada yara Lafageri ee hoos tagta degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Duqeymahan ayaa lala beegsaday 3 gaari oo ay saarnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada, waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka laga helay ilo xog ogaal ayaa tilmaamaya in abaaray 4 subaxnimo ee maantay 17 ka mid ah dhaawacyada maleeshiyaadka argagixisada loo qaaday goob caafimaad oo ku taala deegaanka Alamagan oo dhowr iyo 10 kiiloomitir u jirta degmada Bo'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Sidoo kale duqeyn 4 habeen ka hor ka dhacday degmada Jilib ayaa lagu dilay Aadan Cabdullaahi Ibraahin oo loo yaqaan Aadan Dagajoon, kaas oo ahaa waxay kooxda argagixisada ugu yeerto amiirka guud ee maktabka maaliyadda ee kooxda argagixisada. Xogaha ayaa sidoo kale tilmaamaya in gaariga lala beegsaday horjooga Aadan Dagajoon ay la saarnaayeen 2 horjooga kale oo gacanta ku hayay malafka jabhadda ka howlgasha Kenya. Aadan Dagajoon ayaa noqonaya horjoogihii 12aad ee ka tirsan maktabka maaliyadda ee argagixisada sanadkan kaliya looga dila howlgallada kala duwan, iyadoona horjoogayaasha ee kooxda argagixisada ay wajahayaan ugaarsi xoogan oo ka socda guud ahaan dalka.